ilmaha 4 bilood markuu gaaro qasab miya cuntada in la siiyo kee u muhiimsan cuntada in la siiyo iyo naaska sidee ku ogaan kartaa cunigaada inuu ma aragtaa uu rabo inuu wax cuno assalaamu calaykum waraxmatullah walaalaha qaaliga waan isalaamay haddee marka kugu horeysay ay tahay channelkan aad soo booqatay fadlan subscribe noo saar gambaleelkana furo wuxuu kaa caawinayaa fiidiyoyahan soo geliyo inay ku dhaafin walaalaha qaaliga ah waxaan rabaa maanta inaan iga faa'iideeyo cuntooyinka ilmaha muhiim u yahay iyo waxyaalaha aad u baahan tahay iyo inay ma aragtaa muhiim tahay cuntada ilmaha 4 bilood markuu gaaro inaad siisid waxaan ka bilaabaynaa waxyaalaha kow aad u baahan tahay sidaad u aragtiin halka waxaan soo saaray koobka ilmaha aad u baahan tahay iyo bahalka luqunta loogu xiraayo iyo saxanka intaas muhiim ayay ku tahay hooyada hadaa tahay oo ilmahaada kugu horeysay ay tahay inaad haysatid waayo ilmaha inaad bartid qaadadiisa iyo baaquligiisa waa muhiim midda labaad aad u baahan tahay waxaa waaye kursiga oo ilmaha la gelinayo inaad haysatid ugu koowaan tarbiyada ayay ku kow tahay inuu ilmaha ma aragtaa kursiga aad ku fadhiisisid aana siisid inaad cunto ku siisid markuu yaryahay oo 4 bilood camal ay tahay way yara adag tahay laakiin ilmaha ilaa ay ma aragtaa 6 bilood waxaa muhiim ah kursigiisa inaad siisid kursigiisaad u aragtiina xarig ayuu haystaa kursiga markuu ilmaha uu yaryahayna markaa bartid waxay muhiim u tahay hadhow dambe markaad dininka ama maaragtaa kuraasta qadada aad dhammaan famliga soo fadhiisatiin aad ku cunaysiin cunigii marka waad bartay oo wuu garanayaa meeshuu fadhiisanayo iyo meeshuu cuntada ku cunayo xariga markaa ku jira kursiga waxaa loogu talagalay in loogu xiro ilmaha caloosha markaa gelisid ayaa ku xiraysaa sifo uu difaaco ilmaha inuu dhulka kusoo dhicin ilmaha markaa sidee ku ogaan kartaa inuu diyaar u yahay cuntada inuu cuno ilmaha waxaa ku ogaan kartaa inuu diyaar u yahay cuntada inuu cuno markasta aad wax cunaysid ama aad cabaysid ilmihii wuu ku eegayaa wuu ku jaleecayaa waxaad aad cunaysid ayuu rabaa inuu kula cuno uu kula qabsanayaa carabkii ma aragtaa uu soo bixinayaa indhaha ayuu ku raraacinayaa waxyaalahaasoo badan ayaa ku garanaysaa cuniga inuu diyaar u yahay marka maxaa muhiim ah ilmaha marka ugu koowaad hooyo hadaa tahay waxaad xasuusataa ilmaha markasta inuu naaska uu muhiim u yahay ha kula ordin markiiba inaad cunto ma aragtaa ilmaha 4 bilood markuu gaarahaa cunto waa siin kartaa cuntada la siinayana waxaa la dhahaa introduce ha kula ordin markiiba ilmaha cuntada laakiin ogow cuniga marka ugu hore diyaar ma u yahay cuntada mise diyaar ma u aha taas ayaa muhiimada ah inaad ogaatid ilmaha naaska markii la siinayo aad ayay muhiim u tahay dhaqtariintana badi waxay dadka ku recommend garayaan cunigaas ilaa iyo 6 bilood uu ka gaarayo inaa ma aragtaa aan naaska aad siisid naaska aad ka daynin ilaa cunigaas uu diyaar u noqdo cunto inuu cuno laakiin anaka haddaan nahay Soomaali waxaan jecelnahay ilmaha 4 bilood markuu gaaro markiiba inaan kula orodno cunto amaan u bilowno ma xumo cunto sii laakiin waxaa jira wax la dhahaa introduce baaquliga intaas ka soo qaadid markiiba afka kulliha u gelinin waxaa sameynaysaa cuniga tartiib ayaad ugu bilaabaysaa qaada nuskiisa ayaa ku bilaabaysaa asiinaysaa koow waxaa weeye ilmihii way cusub yihiin waa ilmo cusub weeyaan ma garan kartid cuntada inuu alaaji ku noqon doono xasaasiye ku lahaan doono marka sidaa la aligeed waxaa ilmaha tartiib inaa ugu introduce garaysid weeyaan cuntada wax yar aad u siisid maanta qaada nus aad siisid hadaa boorish siinaysid bari hadaad moos siinaysid wax yar inaad ma aragtaa aad afka u gelisid la rabaa markiiba ma aha inaad cuntada inta soo qaadid cuniga aad dhahday cuntuu gaaray inaad afka ma aragtaa uga buuxisid ma aha waa inaad introduce ku samaysid tartiib wax yar aad ku siisid taas ayaa muhiim ah cuntooyinka ilmaha jirkooda u fiican oo u wanaagsan inaad siisid markay baby yihiin ana ku bilowdid waxaa muhiim ah bocorka titi wadankeena aad ayuu ku baxaa ilmaha markay yaryihiin aad bay u fiican yahay appleka ana ma garan karo Soomaali in laga helo laakiin wadamaha kale waa laga helaa broccoli sida camal appleka marka waxaa sameynaysaa biyo appleka waxaa bay tufaax biyaa ku karkarinaysaa muhiimada waxaa bay ilmaha inuu cuntada u nuglaado nugeel u noqdaa marka appleka biyo ayaa ku karkarinaysaa wax yaro boorish ayaa ku daraysaa kadib mashiinta ayaa ugu shiidaysaa sidaas ayaa ku siinaysaa ilmihii waxaa ku xigaa karootada aad ay u fiican tahay ilmaha inaad bartid markay yaryihiin karootadii ayaa karkarinaysaa kadib caano yaraa ku shubaysaa intaas ayaa isku shiidaysaa qada ayay u noqonaysaa waxaa ku soo haray boorishka aad ay muhiim tahay ilmaha inaad aad siisid oo na bartid markay yaryihiin boorishka waxaa sameynaysaa caano ayaa ku karinaysaa
kadib waad u jilcinaysaa cunugii waana siinaysaa. muhiimada waxaa waye markasta cunuga aad siinaysid waa inaad u shiidid. markaa u shiidid waayo asagoo kukuusan hadaa siisid cunaha ayuu uga istaagaya ilmaha, waxaa noqonaysaa cunugii inuu margado ama ma aragtaa uu stak cunaha ugu noqdo. waxaa kuusoo haray potato ama ma aragtaa baradho waxaa weye aad ayay ugu fiican tahay ilmaha special markay yaryihiin ka bilaabato 4 bilood inaad markasta aad baradho siisid waxaaway way ku korinaan ilmaha, aad ay ugu fiican tahay. baradhada markaa sidee sameynaysaa? baradhada waxaa marka ugu hore biyaa ku karkarinaysaa. baradhada markay jilacdo kadib waxaa sameynaysaa waxaa ku shubaysaa caanaha marka ilmaha ugu korisid cuntada waxaabay vitamin ay ka helayaan. intay yaryihiin cuntada markaa karinaysiin caano ugu jilciya ilmaha. baradhada waxaad ku dari kartaa karato sida hadda u aragtiin. karato ayaa kula karkarin kartaa kadib waa iskula shiidi kartaa. karatadana way u fiican tahay. baradhada waxaaway baradhada waxyaalo badana ugu qaldi kartaa. mar waxaad ugu qaldi kartaa karatada, mar broccoli, mar peas, kolba waxbaad ugu qaldi kartaa. waxaa kuusoo haray mooska waxaaway ilmaha dessert ay u baahan yihiin, wax macaan ay u baahan yihiin inaad siisid. wax macaanna ma aha sokor inaad siisid. dabeecada tar waa inaan joojinaa. anaka Soomaali hadaan nahay waxaad arkaysaa hooyo ilmihii iyagoo yar boorishka sokor ugu darayaan. cusbo iyo sokorba ma ka yirihiin lama baro. marka mooska asaga ayaa sokor leh. sokortuu leeyahana waa natural. marka waad u burburinaysaa waana u shiidaysaa, saasaa ku siinaysaa. spinachka aad ay u fiican yahay ilmaha markay babyska inaad siisiin. sidaad ogtiin vitamin badan ayay ka helayaan. spinachka waxaad ugu daraysaa baradhada markaa ka karinaysid ayaa spinachka ugu dhex daadinaysaa. kadib ma aragtaa markay baradhada karto caano ayaa ugu jilcinaysaa, waa shiidaysaa. mar walba xasuusnaada cuntada ilmaha 4 bilood markaa siinaysin waa inay noqotaa cunto nugul oo ma aragtaa ilmaha cunaha uu istaagaynin. waxaa kuusoo haray ilmaha waxaa jira bahalo loogu shubo ilmihii markaa cuntada maalinta u samaysid. wax inta kaloo soo hartay bahalo loogu talagalaa jirtaa aad dukaamaha ka helaysid. soo iibso freezerka ayaa u gelinaysaa. wareer la-aan maalintii dambe cuntadii maaragtaa iyadoo ku organisaysan ayaa lasoo baxaysaa. freezerka kala soo baxaysaa. banaanka biyo kulul ayaa hoos u dhigaysaa, ha ku kululaado kadib waa siinaysaa. waxyaalaha dukaanka laga soo iibsanayo ama supermarketya waxaa ka wanaagsan waxaa adiga gacantaada ku samayso aa ku siinaysid. sidaad u ognahay cuntooyinka markay dhalooyinka ama maaragtaa plasticya ay ku jiraan dukaamaha chemical ayaa ku jira oo in muddo sifa yacni u hayso cuntada ee u halaabay. marka waxaa kaaga muhiimsan ilmihii inaad siisid wax fresh ah oo ku wanaagsan oo adiga og tahay waxa gacantaada ku samaysa. marka spinachka aad ay u wanaagsan yahay. cuntooyin fara badan insha Allah way jiraan waan iisoo gelin doonaa. marka hadda waxaan ku bilaabay 4 bilood waxaan ku xijin doonaa sida iskugu xigaan. hooyooyinka badan iga soo weydiiyaan TikTok waa mahadsan tihiin. abayooyinka inta ila socdaana aan TikTok-gayga garanaynin dhadhanka cuntada stage 1 ayaa ku qoran. insha Allah halkaasna waa igala socon kartiin. maanta intaas ayaan ugu talagalay insha Allah. intaas video ku xigo waxaan rajeynayaa khayr fara badan. waana mahadsantihiin saa igula socotiin. inaa share gareysina videoyaasha walaalahayga ha iloobina. subscribe na insha Allah inaa ii saartiin. inikoo mahadsan. jazaakallah.